gudoomiyaha xisbiga mucaaridka Ucid Engineer Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu dhalilay qaabka ay u shaqeynayso guddiga kahortagga xanuunka coronavirus waxaana uu sheegay in ay soo baxayaan dhaliilo iyo gondolooyin ay leedahay amaro ay guddidaasi soo saartay gudoomiyaha oo arrimahani ka hadlaya waxa uu yiri waxaan maanta isku waxa weeye de wacyigelintii baa jecel insha Allah taala waatan ku siishinay in wax kasta la iska dhigo oo aynu aafadan ilaahay subxaanahu wa taala quwadiisa nagu tusay inaynu sida aynu ka gaashaamo lahayn mar kale iyo mar saddexaad waxaan hortay ilaahay subxaanahu wa taala ilaahay cudurka aafada ilaahay ay naga qaado ay naga joojiyo umada bini aadamkana ilaahay ka badbaadiyo iskama badbaadin karno waa ilaahay baa inuu tusiyaa wadiisi oo jaaduu khasaf baa ku batay fusuq waa ku batay maga ilaahay subxaanahu wa taala taagteenu tusiyaa siiba gaalada oo ta maanta la ina sintay waxaan doonaynaa inaan talaabada ay soo qaadeen maanta dhaweytay ku dhawaaqeen guddideena caafimaadka ee karantiimada ahayd daba shaqo marka la qabto marka la arko inay ka soo baxeen dhaliilo waa laga gaashaantaa dhaliilo badan baa soo baxay dadaalkeen wadnay ahayd karantiimada waa mid markii horeysta waxa soo baxday inaynu horta meel dadka lagu karantiimayba aanaynu samaynin waxa soo baxdo kale dadka la soo qaadayo ee la karantiimeynaya basas bay soo raacayaan kuraasay taabanayaan albaabkay taabanayaan baski haddana mugu iyaga dhibo dadku u guriyaa magaalada naga jeermiska virus uu la socda baski waxa kala soo baxday in haddana aynu meel aynu hadday marka 10 diyaaradood dameera 10 flight dhowr boqol qof bay noqonayaan dhowr boqol qof meena ku accommodate galayno ma hayno oo ladku horeeyay ee la saddex flight ba dhibaato ay naga kulantay inta waxa dheer haddaynu qaar insha Allah laga heli meel qaar laga helo uma hayno meel gaar ah cusbitaal aan jiifino wada arkaysaa marka adduunka cusbitaal cusub la sameynaya oo patientska hore dal dhex gelin kari maayo waxaas dhan awood uma lihin maanta in cusbitaal gaar ah sameyno inaynu marka dadku 500 gaaraan aynu meel ku karantiimina ma helino oo ay soo gaarayaan passengerkii marka waxaan ku talin lahaa inaynu sida adduunkuba flightski u joojiyeen inaan flightska Imaaraadka Ethiopia Airlines and totally hakino muddo ilaa 2 week ayaan ku talin lahaa taasay nooga hawl yar juhdiga badan ee keenay u baahannahay inaynu gelino rakaabka yimaada rakaabka waxa imanaya Soomaaliya transit ku haba imanaya oo deegaan mar haddana airport nagu dhaafeen oo connection jirin oo laga yaabay gaari raacaan dama xaniibi karno ma hayn karno marka waxa la tahay inaan solution u fiican waxa weeye inaynu joojinaa waxay noo raacay inta Ethiopia jaamacadii way xidhay arday badan oo reer Soomaaliland baa meesha ka dhigan jirtay amar baa la siiyay idama hayn karnee wixii ajnabi oo dhulkiina ku noqda ardayda qudhooda ilaa kun bay gaarsay kun iyo dheeraad ay noqonaysaa laba arrimood bay nooga baahan yihiin mid waa mid sidii horta loo facilitateeyay inay dalka ku soo noqdaan si loo abaabul lahaa oo safaaradu waxa weeyay organize garayso wasaaradda khaarijiguna ay kala shaqeyso sidii loo keeni lahaa talabaadna waxa weeye sidii iyagana meel loo geyn lahaa loo baari lahaa inuu diyaar garowno maadaama ay caddaatay Ethiopia in case badan laga helay inaynu iyada arinta ka gaashaano weey saddexaad waxa weeye aafadan adduunku ka iska kaashanaya dhaqaale badan baa la bixinayaa qalab badan baa la bixinayaa inaga mushkiladayna haystaa reer Soomaaliya waxa weeye umadeena waxna uma hayno tamarteena waan ognahay adduunka wax ma weydiin naqaano waxa la waxaan adduunka weydiisan karanaa oo kabaasi wax ku weydiisana malhin aqoonteedii baa inaga maqan wata markasta ilaaho dhibaatayna haysa waa aqoon daro waxaan jecelahay in ay ku darsadaan magaranaysa guddidu inay abiil u sameeyaan adduunka in macaawino la soo gaarsiiyo qalabkii la soo gaarsiiyo wixii la iska ilaalinayay waxaan adduunka imika soo saaray
laka hortagaa layna siiyo dawooyinka laynoo soo badiyo dee adduunka wax inoo weydiiya adduunka inoo weydiiya weeye taasna waan ku boorinayaa shacbigana waxaan leeyahay amarada hala qaato amarada dowladda soo saarto guddi soo saarto hala qaato waa danteena imanka waxaa la yidhi hubka u wanaagsan ma garanaysaa la iska celin karaa ilaahay ka soo gala wax celin kara waxa weeye in guriyada la joogo iyo in isku taga la yareeyo salaanta la yareeyo ayaa iyaguna weeye falaxalka la sameeyo iyagana aad kamcaha inkastoo dadka muslim kuley aynu ka nadaafad badannahay haddana inaga biyaha inagu yar nadaafadeena ma fiicna waxaan jecelahay in la wacyigeliyo weli ma hayno magaalada wacyigelintii ma hayno civil society-ga ma hayno insha allah jimcaha soo socdana culimada waxaan ka rabnaa in culimadu dee diinta ilaahay subxaanahu watacaala inoma diidin inayn dadaal keeno nafta la dhowro lama diidin inkastoo almowtu xaq qadar ilahay baa dhacaya laakiin qadarka waxaa lagu dara dadaalna waa lagu daraa marka culimada yaanay soo taagin waa wixii talo ah caafimaad ah lagu taliyo waa in iyaguna culimadana shacbiga u gudbiyaan cabdiraxiin muuli ismaaciil shabakadda wararka Ilays News magaalada Hargeysa.